dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha mudane ku soo dhawaada raadiyo xariiradan caawadii waxayna waraysi aanu la yeelanay gudoomiye ku-xigeenka guddiga taageerada xisbiga mucaaradka dalka jamhuuriyadda Jabuuti USN ee dalka Holland mudane Idris Xasan Cilmi ku soo dhawow mudane Idris. waan ku dhawahay Khadir aad iyo aad baad u mahadsan tahay fursadan qaaliga aad isiisay adiyo bahda shabakada xariirad news aad iyo aad baad u mahadsantiin. anaguna aad baan kaaga mahad celinaynaa mudane Idris waxaad ka mid tahay guddida taageerada xisbiga mucaaradka dalka jamhuuriyadda Jabuuti ee dalka Holland waxaad dhawaan ku dhawaaqdeen inaad mataqaanaa aad qabanaysaan shir bal faahfaahin ma nooga siin kartaa shirkaas? haa Khadiro waa runtaas waxaan ku dhawaaqnay shir oo anagoo maaragtay in bahaweynta reer Hoolada ee reer Jabuuti oo dadka isbedel doonka ah taasoo horey aan Hoolad uga jirayn oo maaragtay xoogaa dib u dhac haddii aan reer Hoolad nahay aan maaragtay wadamada kale ee Yurubta aan maaragtay xoogaa ka dambeynay marka dhalin badan baan isku tagnay isqaadqaadatay oo shir yeelanay waxaan garanay inaan shir weyn qabano oon ummadda reer Jabuuti ee maanta dhibta ay ku habsatay oo dhibaatada maaragtay duulka iyo cagaaraddarida iyo maaragtay dhibaatooyinka badan ku habsadeen inaan isgarab taagno markaas sababta aan shirka u qabanay waa sida dadka reer Hoolad inaan iskugu yeedhno aan u bandhigno guddi baan sameynay kumeel gaara guddigaas shirkaasay qaban qaabinaysaa saas darteed baan maaragtay shirkan maaragtay aan u qabanay ummadda reer Hooladna inaan iskugu yeedhno waan wacyi gelino oon maaragtay sidii aan isku garab taagi lahayn shacibka reer Jabuuti ee isbedel doonka. ujeedada shirkan sidaas ka dhawaajisay kulleyba waxa weeyaan waa xisbi mucaarada oo USN taageerayaasha tihiin the USN waa xisbiga dalka jamhuuriyadda Jabuuti ee mucaaradka wax xiriir ma leedihiin dadka gudaha ee dalka Jabuuti ku sugan ee madaxda USN ta? dabcan runtii xiriir waa jiraa anaga haddaan reer Hoolad nahayna waa bilow baan nahay xiriir waa jiraa oo kuwa Yurub u fadhiya ee mas-uuliyiinta maaragtay Brussels fadhida ee maaragtay USN ta u matasha qaaradda Yurub horta xiriirka uu ku bilaabmay oo la xiriirnay dabcan kuwa Jabuutina waa la leenahay inkastoo xiriir official oo wali ogolaasho official oo maadaama aan cusub nahay anagu xiriir waa jiraa waana la xiriirnaa shirkan ka bacdi ayuuna wax official maaragtay oo maaragtay sida official u dhici doontaa laakiin xiriir waa jiraa. ma jiraan wax wadamada jaarka oo in la soo xiriiray oo shirka danaynaya oo ka soo qayb galaya? dabcan waa jiraa anagaa la xiriirnay anagaa casuumnay oo waqti badan oo Yurubta ka socota oo nala soo xiriirnay anaguna aan la xiriirnay waa jiraan Brussels reer Belgium Faransiiska iyo maaragtay daafaha kale Yurubba waa laga soo qayb galayaa waa shir aad u ballaaran oon isku agtaagayno isbedelka waddankeega ummadda isbedel doonka ee reer Jabuuti ee maanta dulman aan la isku garab taagayo wey dabcan waa inoo imanayaan waqti badan oo ballaaran ayaa maaragtay aan soo casuunay oo kasoo qayb galaya insha Allah. mudane Idris rajo intee in leeg ayaad ka qabtaa inuu shirkan sida aad rabtiin inagu dhaco? runtii rajada aad bay u fiican tahay waayo qabanqaabada aan hadda wadno sidii loogu talagalay bay u socotaa si fiican bay maaragtay aan u qabanqaabinay magaalada aan anigu aad deganahay buuna shirku ka dhacayaa oo maaragtay saalka amba hoolka aan maaragtay lagu qabanay aan ka ijaarnay nidaamkii loogu talagalo oo dhan ilaa hadda waa u socotaa wixii loo baahnaa oo dhan waa la dhamaystiray si aad maaragtay rajadu aad bay u sareysaa si fiicanna waa looga soo qayb galayaa dad aad u badan oo maaragtay aad u ballaaran ummad maaragtay way ka soo qayb galaysaa si fiican baa maaragtay rajadu aad bay u sareysaa insha Allah. okay anagoo ku jirna gabagabadii barnaamijka adigoo ka faa'iideysanaya raadiyo xariirad shabakada xariirad news ayaad baan halkan caawa uga soo jeedin lahayd?
runtii baaq waxaan xaggan uga jeedin lahaa marka u horeysa ummadda reer Djibouti ee Holland ku nool inta aan maaragtay aan hore u maqalna maaragtay hadda ay maaragtay haddii ay shabakad caalami ah oo maaragtay xariirad news ay ka maaragtay waraysiga ay ka maqasho inay shirkaas ay kasoo qayb galaan inay ummadooda maanta cid walba waa og tahay qof kastoo reer Djibouti dibta wadankii taala inay ummadooda isbeddeldoonka ee dibtu haysato inay kasoo qayb galaan ay isa soo garab taagaan baan baaq u jeedinayaa reer hoolood oo dhan dabcan dadku intiisa badan maanta waa la ogyahay waa isbeddeldoon laakiin dadku nin walba meelkii danaha gaarkaa lagu mashquulsan yahay waxaa loo baahnaa oon in la isku yimaado oo wax la bilaabo tiina way dhacday markaas waxaan leenahay soo garab joogsada ummadiina dadaalka wadankiina iyo isbedelka iyo cadaaladda iyo maaragtay xaqdoonka wadanka kasoo qayb gala ayaan leeyahay waxaan ummadda kale reer Djibouti dadka gudaha joogana aan maaragtay ku guubaabinayaa inay halganka xaggaa kasii wadaan inayna ka seexan inay sidaa maaragtay ugu heegnaadaan inay xaqooga ay saas maaragtay si nabaddoona oo nabad ay ku jirto ay xaqooga mar walba ay maaragtay ay sidaas maaragtay ugu taagnaadaan insha allah biidnillaahi kariimna waa la gaarayaa waana dowdahay guushu insha allah intaasaan maaragtay ujeedinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullah insha allah aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka guddiga taageerada xisbiga mucaaradka dalka jamhuuriyadda Djibouti ee USN ee dalka Holland mudane Idris Xasan Cilmi oo igu waramayay stuudiyaha yagaanu ku leenahay dalka Holland dhegeystayaasha waxaan leeyahay sidaa iyo salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh